kulan hawleedka lagu falanqeynayay dejinta qorshe hawleedka sanadka 2021 ay ku shaqeyn doonto wasaaradda horumarinta maaliyadda waxa ka soo qayb galay wasiirka maaliyadda wasiir ku-xigeenka maaliyadda agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo dhammaan agaasimayaasha waaxyaha ee wasaaradda horumarinta maaliyadda wax kastaana waxay halkaasi ku soo bandhigtay qorshaha ay ku shaqeyn doonto sanadka 2021 agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Cabdi Gurxan oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ka waramay ujeedada kulankan waxaana kamid ah dalkiisii si aynu u dejino qorshe wasaaradeed oo waafaqsan qorshaha guud ee wasaaraddu ay dejisay ee strategic plan-ka 5 sano ee soo socda waxaan runtii aynu xasuusanahay inaynu sanadkii waa kulankii saddexaad oo laga soo bilaabo 2019 waxaynu soo bilownay in aynu dejinno sanad walba bilowgiisa inta aanu ka kala bilaabmin inaynu dejinno qorshe hawleed noqon doona aasaaska aynu ka duulayno ee aynu shaqada ku qabanayno waynu uga mahad celinaynaa wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda oo runtii bilaabay hanaankan ah dejinta qorshayaasha isla xisaabtanka sanadka dhammaadkiisa markasta qorshihii aynu dejinnay sida uu u fulay na aynu sanad walba qabanno wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Ibrahim Yuusuf oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in qorshe hawleedkan la dejinayo la waafajiyo qorshaha guud ee qaranka waxaana kamid ah dalkiisii runtii waa mid kamid ah shaqooyinka ugu muhiimsan ee aynu hayno koow waxa kamid ah sanadka awalkiisa inaynu qorsheyno wixii aynu qaban lahayn qorsheyntaas waxay inoo sahlaysaa inaynu ka faa'iideysano waqtiga inaynu qorshaha aynu dhiganay marka aynu samayno inoo fududayso inaynu wixii aynu qorsheynay oo dhan si wanaagsan u qabsano oo waqtiyeysan oo mudaysan oo ciddii mas-uulka ka hayda ay qabanayso aynu isla ognahay sanadka horraantiisa sanadka dabayaaqadiisana kolley inagoo sanadka dhexdiisana review garayn doono marba dib u eegi doona laakiin sanadka dabayaaqadiisana waxay noo sahlaysaa inaynu ku xisaabtanno sanadkii wixii aynu qorsheynay wixii inoo qabsoomay wixii inaga qabiyoobay iyo sababaha inooga qabiyoobay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo kulanka furay ayaa waxa uu ka waramay muhiimadda ay kulamada noocan oo kale leeyihiin isagoo ku amaanay dhammaan howlwadeennada wasaaradda horumarinta maaliyadda sida loogu guuleystay qorshihii sanadkii hore isagoo rajeeyay qorshaha sanadkan uu noqon doono mid lagu guuleysto waxaana kamid ah dalkiisii kulanka waxaan rajeyn doonaa insha Allah in qorshaheenu uu ku dhisnaan doono qayb ahaankii hore wixii noo dhammaadayna way noo dhammaadeen wixii noo qabiyana ka dambe ay noogu darsamayaan wixii kale cusubna way ku darsanaynaa dabcan marka la qiimeynayo qorshe kii hore khaasatan wixii lagu guuleystay dad unbaa sabab u ahaa marka xilligan oo kale way fiican tahay iyada lafteeda in la xuso dadkii tacabka badan geliyay suurto geliyay qorshihii hore in lagu guuleystay amba meel wanaagsan ba laga gaaray marka maadaama aynu joogno sanad dabayaaqadii waxaan jecelahay inaan intiina halkan joogta wasaaradda iyo intay naga maqanbaba inaan xuso oo ku xuso shaqadii wanaagsaneed ee qiimaha lahayd ee sanadkii 2020 oo sanad runtii aad u adag ah haddana sidaynu uga baxnayn uga dabaalanay baan runtii doonay inaan ugana mahad celiyo kuna ammaano